وقرانك كوبادا عكتا استاديو كونيس oo caawa ciyaartii finalka ay ku wada ciyaareen kooxaha degmooyinka Waabari iyo Shibis waxaana ciyaartan u soo daawasho tagay dadweynaha degmooyinka gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u yimid goobtan si uu u daawado ciyaartan kama dambaysta ah ee tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir u tahay markii ugu horeysay ee madaxweynuhu xilli habeen ku daawaday Muqdisho ciyaar kubadda cagta tan intii xafiiska u qabtay taas oo ciyaarta ka dhigtay mid aad u xiiso badan inkastoo ay joogeen madaxda qaar ee hay'adaha kala duwan ee dawladda haddana waxaa garoonka hareeyay taageerayaal fara badan oo labada kooxood dhiiri gelinayay dadka ciyaarta u soo daawasho taga waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah ciyaartooydii ka tirsaneed kooxihii dalka ka jiray ka hor sagaashameedii waxaana ka mid ahaa Abuukar Islaaw oo u ciyaari jiray kooxdii madbacadda waxaan xasuusinaysaa waqtigii barisamaadkii oo aan ka soo qayb gal jirnay ciyaarihii ayadoo lagu ciyaari jiray garoonkan istaadiyo Banaadir iyo istaadiyo Muqdisho waxaan xasuusinaysaa tii la mid tahay ayaa la mid tahay ayadoo waqtiga wadankaas waqtigiisa la joogo madaxweynihii dalka ugu sareeyay oo joogo saacadan la joogo garoonkii istaadiyo Banaadir aan joogno ciyaar xiiso badan ay ka dhacayso degmooyinka Shibis iyo Waabari waxay xasuusinaysaa waqtigaas kooxda degmada Waabari ayaa ugu dambeyn waxay ku guuleysatay koobkii kadib markii hal gool ay uga badisay Shibis taasoo siisay hogaanka koobka kubadda cagta ee gobolka Banaadir halka Shibisna ay hanatay bilada kooxda kaalinta labaad ee tartanka ciyaaraha ee gobolka Banaadir gudoomiyaha kubadda cagta gobolka Banaadir Aada Xaaji Barawish ayaa ku tilmaamay ciyaar aad u xiiso badan oo nasiib u yeelatay in uu daawado madaxweynihii jamhuuriyadda طبعا فرحad weyn ayay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhiirigelin weyn ayay u tahay madaxweynahan waa kaga mahad celinayna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu caawada nagala qayb qaato ciyaartan finalka ah sanadkii hore muusan imaan laakiin sanadkan aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol inuu noo yimaado dhiirigelin weyn ayay noo tahay waxaana tahay waxa aan qabanay inuu si dhiirigeliyo dadaalkeena asi laba dibaarina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka gobolka Banaadir ay u tahay habeen ku weyn ujeedada maamulka gobolka Banaadir oo tartanka u qabtay waxay ahayd in degmooyinka isdhexgalka bulshada isla markaana dhalinyarada oo aad iyo aad u jecel ciyaaraha u jecel horumarka dalkooda u jecel midnimadooda iyo wadajirkooda inay halkan isugu yimaadaan madaxweyne caawa joogistaada waxay noo tahay sharaf iyo karaamo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kooxdii Waabari ku guuleysatay ciyaarta guddoonsiye koobkii isla markaana bixiyay abaalmarinada kooxihii iyo shakhsiyaadkii qaybta ka ahaa tartankaas ayaa sheegay in tani ay muujinayso heerka wanaagsan ee uu marayo ammaanka caasimadda caawa waxay noo tahay sharaf inaan kala soo qayb galno tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir oo caawa ku soo gabagaboobay istaadiyo Muqdisho waxaan aad iyo aad oo kale ugu faraxsanahay inay caawa koobka qaadatay degmada Waabari degmada Shibis waa guuleysatay degmada Hodan waa guuleysatay kulli degmooyinku waa guuleysteen maxaa yeelay waxay muujiyeen in magaalada Muqdisho ay nabad tahay oo lagu ciyaari karo runtii waxay u soo jiideen magaalada Muqdisho inay tahay magaalo nabada magaalo fiican magaalo isdhexgal leh إن شاء الله سنة صوصعنا سنة يسكر في على الله هنوغا ديغو halkan waxa ku soo gabagabay ciyaarihii kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen 17 degmo ee gobolka waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo welinayeen kumanaan dadka reer Muqdisho oo ciyaartan caawa u soo daawasho tagay koobkan ayaa degmada Waabari uga dhigay kii labaad ee ku guuleysato tan iyo markii dib loo bilaabay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Banaadir Ali Baashi Cabdullaahi magaalada Muqdisho